والدين تي عرورتي دلين أو كنول أستراليا اللهم نجنا أستراليا والدين تا عرورتي أي دلين يكسو نوغين يسو كبيين أو حكا دحيت صدود أستراليا عرورتا وحي كدودايان إن لحكومي كرين أو أي حركيهين أبها إيهويا اللهم نجنا أو أي هين حركيهين أضوغي إيها ورتي إسكدالين عنقا وحوليه هيث ويلكيجيو my son my دهان في أستراليا وحلو دوم كساي my كبيرش عملاي my كبيرش يقار كيغ عملا لك وضع عملاي my كبيرش سيغنا جبرتي ميم حنك أوغاي يا كالي عشاي أما كالي خراعو أما كالي خذي سيدي هسكي قد سيد إيجا جوجسي نين وينو حر سميه يا أبوت كوسي هس أنا قلت سنة إنت إله الرشيد هوي يا أب يا أبوت إدنسي أنا وقتي كان روان عشينا وقتي كان روان وحنا مركان بعضه وقتي كان روان ساعنا حر باننا إذن كأي يعني اللهم نجنا لما ذي كل شيء ما حر لك نككرا لما ذي كل شيء ما حر لك نككرا قعنتا بدعي قعنتا مدك ما لقوي كرا جنة إلهي لما ذي لوك نحذيت أسكو صديقي ما تنافي كرتا هو سان لي أنك أمان كورونا أمني دردان نقول الشيء يا أدون كرن أمني دروا كجرتا تن حتى نقول الشيء لي أمان كورونا هيبه خضب كان وحين صوت يا رسي ورسدينا آمنا معه هي عبد الله آمنا معه عبد الله كواس عمل الله ما كاسو جوي الله بيجسو جوي سو دواو in badan doodo siyaasadeed oo tiro badan ayaad maqli jirteen waxaad kalood maqli jirteen hadallo badan oo dad badan ka dhaxeeyo oo isku haystaan isku qabsi camal leh balse hadda waxaan idin soo wadaa dood intii oo dhanba ka duwan doodana waxay ka dhacday wadanka Australia balse doodano waxa ay u dhaxaysaa oo loo kala gar qaadaya waalidiintii iyo caruurtoodii waa arrin la yaab leh kuwaasoo isfaham waay badan ku imaaday waa la yaab doodaas waxay ka imaatay badideeda caruurta oo ayna ogoleen waalidkooda inay canaantaan ama ay la hadlaanba waxay u yaqaanaanba ama ay u arkaanba waalidku markuu la hadlo inay caburinayaan waalidku caburintaasna waxay u arkaan xaq bini'aadanimada oo qaldan nala daawada ayagoo ereyada ama Ingiriis ha ku soo gudbiyaan ama Soomaali ha ku soo gudbiyaan ka cabanayaan waalidiintooda. It's not normal for a child to behave that way, come home late, not listen to their parents. Obviously there's something wrong. Yes, that's all. If you look at it from a mother's point of view, the father's overseas, a divorce happened, she's got 17 and 19-year-old kids plus younger kids, and her only concern is the music they listen to or the TV shows that they watch. And as a single mother, she now has to face this massive isolation. So what is our responsibility? Our responsibility now is to take care of our mothers, take them out, invite them into our world. Let's not isolate them. Your mom's got a problem with the music you listen to, mate, turn it off. Like, we don't seem to have the same concern for our sons, not in the sense of like, I'm trying to take it away from Sophia, but in the way that you're not really help them set up in this life or the waalidiin badan ayaa meeshaas ama goobtaas ku sugnaa iyagoo siinayo tarbiyad ama canaan ama hadal wanaagsan ayagoo u jeedinayaan midda kale waalidiintana way ka hadleen caqabadaha haysto waana ay ka hadleen waa kan maxal dharkooda waa loo dhaqaa marka waxaan leeyahay wixii aynu halka ku jiri jiray inaynu ka baxnaa loo baahan yahay waalidiintu inay isbedelaan ilmaha dhamaan waa waxa weeye hal qola kaligeeda wax ma bedeli karto ugu adag oo meeshan anaga sida aan rabno waa in ilmaheenu hagaagaan haddaba aniga haddaana kuu sheegi karin adigana aada iga qaadan karin inaa hagaagtid waa problem xal u arkaa macnaha anoon ku noqonayn sheekada la sheegay in guri kasta looga hadlo af Soomaali. That's number one. In dugsi kasta oo dugsi quraana af Soomaali lagu dhigo qayb kamida duruus ay noqoto waalidku waxa la yiri af Soomaali guriga looga hadlo
but waalidkii carruurtii ma wada hadlaan hooyadu hadday Soomaali ku hadasho she's going to be on the phone waxa la hadlaysaa ma taqaana habaryar iyo eedo iyo bay leedahay islaantii waayo markii loo fiiriyo waalidka iyo carruurta canaanta carruurtaaba fogba carruurta ayaaba waalidka ayaadba isleedahaba waa yaab taas waxaa la dhihi kalaa baawarka ama awoodda ay siiyeen wadamada ajaanibta carruurta yaryarka ayaa keentay oo mar walbaba asal u ah mar walba waxaa hagaagsan ama dibadda ha joogo ama meel kale ha joogo in aad carruurtaada u soo celisid wadankiisa Soomaaliyeed sida ay ula jaan qaadaan tarbiyada wanaagsan iyo diintooda macaan Aamina Macow Cabdulle faaliyaha qaranka Universal TV Muqdisho